السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي محمد دمانتي وادي سلام يا وولاشين أم خالد وتيفي أم خالد دمانتين ولا لها دمانتين ميلاد شوكتان بوادي سلام يا الله يدي السلام يالو ما تو يوم الأحد ويه دمانتين ميلاد شوكتان بوادي سلام يا ولا لها يقالي قايون رجع لهي الله يدي السلام يالو إلهي إذن كيسا مالنت مالن وناكسن الله ينو كغدقو همين انت اتاين همين وناكسن الله وكغدقو إلهي إذن كيسا نبضنا الله ينكو سواروريو انتي كلام مقانو مسلمين هدد بدن او مسلمين او ولاله ديو يوينكو ديو آبو ديو قار المهو دي كمقانيها إلهي نبضها ويالو نبضها وسواروريو قار واردكو كمقانيها الله نبضو كيانو نبضو سواروريو intii dib meel ka haysataa dhibta Allah ka dulqaado ilaahina dib adduunyo dib aqrabahayna ka haya dhamaanteen meelan joognaba Soomaali Maxamed dhamaantiin walaalahayga meelaad joogtaanba Allah qaadir waxa kaga bariyay qof walba meeshuu ka tawalay ilaahay inuu ka tiiriyo ilaahay waxaan ka baryaynaa adduunyo aqrab inuu noo naxariista waa u baahanahay meel walba aan joognaa ma aqraan joognaa ma adduun joogne dhamaanteen waxaan leeyahay Allah inoo naxariisto dambigeena dambi waartkeen ba Allah dhaafo Allah isugu keen dambi dhaafo wixii dambi aanu ku hadalno qowlka iyaga ku jirana ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga saamaxo inta waa hadlaynaa wax dambiyana waa ku hadlaynaa wax khayrana waa ku hadlaynaa ilaahay dambi waartkayba ha dhaafana noo naxariisto naxariis waarta adduunyo aakhiraba walaalahayga dhamaantiin waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa uma khaalid mar labaad maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo waxa weeye adduunkan waxa weeye hadii la yiraahdo waxa u daran baa wax walba doon adduunka waxa u liita wax walba doon hadaan yiraahdo waxaasan rabaa oo ana wixii waxa weeye markaas awoodaydu jooginin waxa weeye waa wax walba doon baata hadaan yiraahdo jannadii aakhiraan rabaa hadda jannadu shaqay rabtaa in loo shaqaystay rabtaa jannada aad u jeedid shaqaad u shaqaysatay bas baad ku galaysaa ma ahan inaad adduunyo jijabinaysid ma ahan inaad buurar lagu yiri soorar alla kugu qasbay ilaahay kuma dhihinin muxuu ahayd waxaadan samayn kana ilaahay kuma u dirinin laakiin inaad shuqul wax walba shuqul bay u baahan yihiin markaad rabtid inaad aakhira jannada gashid amal bay u baahan tahay inaad qabatid amalkaas hadaan qabanno wax walba waa inoo hagaagaya sidaad u ogtihiinba adduunkana haddaan idhaahdo ilaahu tabcan ma haya xoolaysintaan meel fariisto ilaahay waa agdaraa inuu ku siiyo laakiin horta shaqaysuu ku yiri ilaahu guursan ma haye hay gablamin baan iri gabar haddaan hayna ma raba inaan guursado wiil haddaan hayna ma raba inaan guursado hadda see gablanka uga baxaysaa ilaahay guursuu ku yiri ilaahay haddaadan guursanin saddexdaas qodob ayaan rabaa maanta inaan ka hadla haddii ilaahay yiraahdo ilaahay noo dambi dhaafana nacafiyo wax badan oo khayrana waa ku hadlalnaa wax badan oo aan khayr ahayna waa ku hadalnaa ilaahay na saamaxo wixii khayr oo aan sameynana ajarkeeda Allah noo qoro wixii dambi aan galnana ilaahay naga cafiyo isaga raxmaane dhamaantiin walaalayaal waxaan dileeyahay ku soo dhawaada uma khaalid iyo YouTube-keeda YouTube-kan uma furan adadku maagti umana ana furan ad xoolo ku dheeshi ad xoolo ka heshi umana furan ad maaragta ad magacaaga iyo codkaaga hala maqlo umana furan ilaahay waa igu ogyo waxaan u furtay dadka walaalaha ee Soomaaliyeed wixii khayr qaba iyaguna inay iga faa'iidaan aniguna iyaga aan ka faa'iido oo iyagana ka dhageysto inta bas baan u furtay ilaahna waa igu ogyo qalbtayda Allah og sababtay tahay wixii aan dhali lahaana waa dhalay wixii alla siin lahaana Allah ka baryahay aadana ka baryimahayo marka walaalahay intaas markaan uga soo noqdo hadalkaas waxa weeye ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku yiri jannadu waxay u baahan tahay shuqul inaad u shaqaysatid bay u baahan tahay haddaad rabtid inaad cuntid cunadii waa inaad haddii xataa lagu soo kariyo lagu keeno saxan lagu soo saaro miis lagu soo saaro waxaad u baahan tahay inaad gacantaada ku cuntid baad u baahan tahay haddii aadan gacan lahayn waxaad u baahan tahay in qofka markaa kula jooga uu ku siiyo markay gacanahaaga aad weydid lugahaaga aad ku cunaysaa
lugahaaga markaad weydidna afkaagaad ku cunaysaa intaasna waxaa u dhaxeeya haddii qof alla kuu qasbo oo ku siiyo mar walba waxaad u baahan tahay in afkii ka low si ay ku gashaba afkii ay cunadaada ku gasho jannadu marka waxay u baahan tahay inaad cibaadaysatid oo ilaahay adeecdid ilaahaygi ku abuurtay oo ku soo adigaan waa hooyada caloosheeda kugu soo beeray oo labiya dhidig kaa soo abuuray oo markaas caloosha hooyadaa kugu beeray oo markaa dabadda kuu soo saara adoon xoog lahayn oo cad meel iska yaal markaas lagu soo koriyey oo caano iyo cunno wixii lagu siin karayba lagu siiyey oo intaanad kusoo leekaatay shuqul baad ku timid ilaaha subxaana wa tacaala baa 1 iyo 2 iyo 3 ba kaa ahaa marka waxaa weeye inaad adiga laftigaaga camal falatid oo ilaahay caabudid oo ilaahay u noqotid subxaana wa tacaala oo aad mar walba qof alla yaqaana tahay ilaahay subxaana qof yaqaano oo ilaahay adeeca tahay saacada kugu qaadato cimrigaaga alla subxaana wa tacaala wuxuu u baahan yahay inaad intaad ka nooshahay saacad baa allaha ka dhigay inaad salaada ilaahay tukatid inaad ilaahay caabudo kitaabkiisa qaadatid inaad maxaa weeye aad qasuus waqtiga aad iskuulka uga dhigtay oo shaqadaada uga dhigtay inaad tii allana aad mar walba afkaaga ku haysid aysan afkaaga ka bixin mar walba inaan dikriga alla afkaaga ka bixin uma rabo inaad meel u fariisatid inaad u shaqo beeshidna uma rabto adoo shaqaysan iyo hawshaada wataa dikriga allana alla wataa astaghfirullah haddaad ku haysid maantii oo dhan astaghfirullah alxamdulilah laa ilaaha ila allah allahu akbar ad ku haysid intaasaa wax walba kaaga badan waxa weeye marka shaqo walba waxay u baahan tahay juhdi bay u baahan tahay iyo inaad u tacabtid oo u shaqaysid bay u tahay laakiin alla caabudaadkiisa juhdina uma baahna inaad tacabtid oo dhidididna uma baahna inaad naftaada aad maaragtaa aad waqti u weydidna uma baahna salaada 2 daqiiqo oo la tukadaa dikriga allana afka lagu haya hawl kastahay shaqee dhac bood wax walba ilaahuma durudidood adigu sariirtaada raaxaysanaysid dikriga alla uma baahna inaad waqti siisid qaasa mar walba inay afkaaga ku jirtaa la rabaa waxa weeye waxaad guursan mahayo haddaada guursan gabar aada guursan ama aada wiil guursan seebaa rabtaa inaad u dhashid seebaa rabtaa ilaahay inuu ubad khayr qaba kaa beero biri ku anfaca waxa weeye wax walba waxay u baahan yihiin shuqul bay u baahan yihiin adduunkan tacab bay u baahan yihiin adduunkan tacab bay u baahan tahay dhalinku tacab bay u baahan yahay gabar in la guursadaa tacab bay u baahan tahay wiil in la guursadana tacab bay u baahan tahay sababta gabar haddaa tahay inaad dhashid oo guriga ka shaqaysid oo reerkii maamushid oo reerba maahana 10 reer oo reerka ehelka inaad maamushid baa lagaa rabaa inaad dhashid baa lagaa rabaa inaad reerkii u shaqaysidna waa lagaa rabaa inaad gurigii oo dhan ka fisidna waa lagaa rabaa ninkii ha noqoto caruurtii ha noqoto ehelkii ha noqoto intaa inaad ka fisid baa lagaa rabaa waa shuqul wiilkii waxaa laga rabaa inuu reerkan maamulo gabadhan walaashiisa u naxariisto inuu wax la qabto inuu u soo shaqeeyo wax walba oo reerka laga rabo wiilkaasaa laga sugayaa gabadha waa hooyo gurigeeda ay fadhidaa waa shuqul uma baahna inaad meel iska fariisato tiraado ilaahu guursan mahaye hay gablamin waxa weeye marka qofka aadamiga waxa loo baahan yahay wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu dhawaa taa laftigeeda waa cibaado taa laftigeeda inaad guursataa laftigeeda cibaado ah sababtoo taa haddaad hadda intaad ordo waxaan alla raalli ka samaysidba dambi baa lagu qorayaa tanna waxaa lagu qorayaa muxuu ahaay ilaahay baa kugu abaalmarinhaya marka waxa weeye wax walba aad samaysid waxaad ogaataa inta khayr kale inaad alle ugu dhawaanayso ajar lagu qorayo ood khayr ka dhaxlaysid haddaan idhaahdo shaqaysan maayo allow xoolaysii meel intaan qotonsado ilaahay waa agdaraa inuu ku siiyo laakiin ku siin mahayo waa inaad shaqaysataa ilaahay waad agdartaa adoo meel iska fadhiyo oo aanba shaqaysan maalin gelinkeedada soo shaqaysan inuu ilaahay ku siiyo waxba asaga lama ahan allah waxba lama ahan laakiin qofku inuu shaqaysto xataa baan ku yiri xataa socodba uu ku daro ilaahay risqiisa waa ku qoray waana ku siinaya wax laga baryana allah qaadir raxmaanka baa u fiican sababtay taadana wuxuu maalin hadda wax ku siiyo maalinta labaad uu ku karhanahay wuxuu ku leeyahay wareeda karo baryo badana walaalkaaga adiga kuugu jecel hadduu maalin wax ku siiyo maalinta labaad waa ku dhibsanahay hadduu adiga kuu sheegin uurku ka leeyahay maalin walba kan hadaan muxuu hayto biil buu igu soo fariista miya ma raba inuu shaqaysto miya buu ku leeyahay marka adduunkan waxa weeye walaalayaal
qofkii khayr ilaahay la maagaana wuu helaa qofkii alla shar ka raadiyana sharkiisa uu buu helaa adduunkan aakhiriya adduunba shuqul bay u baahan tahay in qofku shaqaysto oo u dhaco oo u dhibtoodo oo u tacabo ilaahay ha inoo dambi dhaafo meelaan joognaba adduun iyo aakhiraba allah ha inoo dambi dhaafo adduunkan wax walba waxaa weeye haddaynu dhahno war waxaasu ma dhici karaan ilaahay ha inoo dambi dhaafo adduun iyo aakhiraba haddaan nidhaahno war waxaasu wax dhici karaba ma ahan maya waa dhici karaani wixii ilaahayna raalli ka noqdo adiguna aad faraha saartid waa ilaahay baa kula qabanahaya ilaaha subxaana kula qabanaya kii shala xoolo haysta waxaad arkaysaa adoo asagoon maanta haysan adigu aad haysatid ilaahay ha inoo dambi dhaafo ilaahay idankiisa biidmillaah baalku inuu iga go-ayaan u malaynaya